booliska magaalada Oslo ee caasimadda waddanka Norway ayaa lagu soo waramayaa in ay gacanta ku soo dhigeen wiil 20 jir ah oo lagu soo eedeeyay laguna tuhmayo in uu xaaskiisa turiyay gacantana turri kaga dhuftay. ninkan 20 jirka ah ayaa lagu soo waramayaa in hadda la dhigay xabsiga magaalada Oslo halkaasoo wax laga weydiinayo dhibaatada uu u geystay iyo falkan turriyeynta ah oo uu kula kacay xaaskiisa. haweeneydan uu qabay wiilkan 20 jirka ah ayaa iyaduna lagu soo waramayaa in loo qaaday isbitaalka magaaladaasi halkaasoo lagu dabiibayo laguna daryeelayo. booliska ayaa ku waramayo in ay hadda gacanta ku hayaan 20 jirkan xaaskiisa turriyay gacantana kaga dhaawacay mindida kaasoo ay sheegeen in ay ku wareysanayaan xabsigana ay u taxaabeen ay hadda wax ka weydiinayaan dhibka uu geystay iyaga oo sheegay in ay baaritaano ku hayaan kiiskan halka ay ku warameen in haweeneydiisa ay hadda xaaladeedu wanaagsan tahay laguna dabiibayo mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Oslo. booliska ayaa sheegay in ay baaritaan xooggan ka sameeyeen guriga ay lamaanahan ku noolaayeen halkaasoo ay ka dhacday turriyeynta loo geystay haweeneydan iyagoo sheegay in ay sidoo kale wareysiyo iyo warbixino ka qaadanayaan dadkii ka agdhawaa xaafadan oo ku taala bariga magaalada Oslo ee caasimadda waddanka Norway. 20 jirkan ayay hadda booliska waxa ay ka wareysanayaan sababta ku kaliftay in uu xaaskiisa u gacan qaado waliba turri inta u soo qaado dardaro oo gacanta dhaawac xooggan uga geysto. arrintan turriyeynta ah ee dhaxmartay lamaanahan isqaba ee 20 jirada ah ee ku nool bariga magaalada Oslo ayaa dadka qaar waxa ay ka muujinayaan walaac iyo walbahaar ku saabsan maadaama waayadii dambe ay ku sii badanayeen magaaladan caasimadda oo ah Norway iyo deegaanada kale ee dalka turriyeynta iyo mindiyeynta loo adeegsanayo kuwa oo mararka qaar dhexmaraya dhalinyarada qoysaska dhexdooda iyo waliba ay isticmaalayeen tuugada iyo burcadka dhaca u geysta dadka. halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.